Okay, saaxiibayaal soo dhawaada. Casharkan maanta waxaan ku baran doonaa sida Kali Linux loogu rakibo gudaha Windows-ka. Waxaynu adeegsan doonaa WSL oo laga soo gaabiyo Windows Subsystem for Linux. WSL-ku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku shaqaysato Linux adigoo samayn dual booting ama aan isticmaalin virtual machine sida VMware-ka ama VirtualBox-ka oo kale. Okay, saaxiibayaal waxaad la soo baxaysaa search-ga ugu horeyn. waxaad ku qoraysaa CMD as administrator ahaan ayaad u rangareynaysaa. dabeetana waxaa kuu soo baxaysaa daaqada CMD-da. daaqadan ayaad commandigan ku qoraysaa. marka waxaad oranaysaa WSL -list -online ayaad ku qoraysaa. commandigan marka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad maaragtay soo bandhigto Linux distributionska uu WSL taageero. waxaad bartaa ku arki kartaa Debian baad ku arki kartaa, Ubuntu baad ku arki kartaa, Fedora ayaad ku arki kartaa. marka dhammaan kuwaas oo dhan wuu taageeraa bay ka dhigan tahay. marka okay saaxiibayaal saad arkaysaan Kali Linux bay ka mid tahay oo ah ku diyaar meesha. marka commandiga lagu install gareeyo ayaan qorayaa WSL space -install space -d Kali -Linux ayaan qorayaa. marka bartani waxay ku xiran tahay internetkaaga speedkiisa, kalba xawaarahaaga internetku siduu yahay bay usoo degaysaa. marka computerka waxaa laga yaabaa marka ugu horeysa inuu restart ku weydiiyo. restart baa u diraysaa. marka uu restartiga ka soo noqdana bartaa searchigun baad ku qoraysaa Kali Linux markaa ku dhufato daaqadan madow baa kuu soo bixi. halkaan baad hore uga sii socon. marka aniga restarti ma weydiin, waxaan sameynayaa wixii weydiiyey username inaan galo. usernameka ayaan bartan ku qorayaa. marka inaad wada arkaysaan baan filayaa. halkaas ayaan ku qorayaa saaxiibayaal usernamekaygaan qorayaa. waxaan qorayaa abyad markaan idhaahdo enter baan odhanayaa. new password buu weydiiyey. marka halkan password baan gelinayaa. Kali Linuxna saan hore idinku sheegay passwordka ma soo muujiyo. waan qoray hadda ma soo muujin. retype buu leeyahay. dabeetana mar labaad ayaan ku celinayaa. hadda bartaas waxaa ka bilowday daaqadan hadda idin muuqata ee kalarka leh waxa weeyaan terminalkii Kali Linux weeyaan. marka kex haddaan ku qoro oon GUI-ga soo kicis idhaahdo hadda ma jiro, kuma install garaysno. maadaama uu iska dhex waayey wax kex la dhaho ama qaybta GUI-ga soo kicisa ee Kali Linux, waxaan sameynaynaa commandigan aan qoraynaa sudo apt update ayaan odhanaynaa si uu softwareda ka maqan ugu soo daro bakhaarkiisa ama repositorygiisa. marka halkan passwordkan gelinayaa. passwordka okay waan qalday. passwordkan ku celinayaa bartan. passwordka markaan geliyo wuxuu soo download gareynayaa wax alla wixii maaragtay packages ee uu ku soo kicin karo GUI-ga ama graphical user interface-ka ee Kali Linux. marka si aan u install gareeyo marka wuxuu soo download gareeyo oo dhan waxaan qorayaa sudo apt install ayaan qorayaa -y Kali -Linux Kali -win -kex ayaan qorayaa. marka command kasta sidiisa ayaad u qoraysaa. marka hadda wuxuu soo download gareynayaa, wuxuu install gareynayaa wax alla wixii packages ee uu markii dhaweeyay noo soo download gareeyay. marka halkaa saad ku arkaysaan waxaa jira calaamado cas oo ah errors ku yimid intuu install gareynaya ah. marka uu sidan oo kale soo saaro waxaad sameynaysaa isla commandigun baad ku celinaysaa. waxaad odhanaysaa tusaale ahaan eega haddaan jeegareeyo oo kale inuu shaqeynayo oo kale GUI-gu ma soo kacayo sababtoo ah saad arkaysaan dee cilada ayaa ku yimid, errors baa iska jira. marka waxaan ku laba celinayaa commandigii waan qorayaa sudo apt install space Kali -win -kex ayaan qorayaa. marka wuxuu leeyahay maaragtay inaad install gareyso maad rabtaa yes ama no. marka yes y baan taabanaya. marka hadda wixii uu kolkii hore ka tegay oo dhan buu saxayaa. hadda halkan saad ku arkaysaan 3 error baa haddana yimid. marka haddii aan soo kicis iraahdo ma noqonayo sababtoo ah 3 error baa inoogu jira. marka si aan 3daa error uga saaro waxaan sameynaynaa isla commandigun baan ku celinaynaa sudo apt install space Kali -win -kex ayaan qoraynaa. marka sidii oo kale y baan gelinaya haddana intii kaluu dhamaystiraya. markaa saaxiibayaal waa kana waxaa maaragtay GUI-gii baa soo kacay ama graphical user interface-kii Kali Linux ayaa soo kacay luuqadda
English oo United States ah ayaan dooranayaa. Keyboardka baan enter taabanaya. Enter markaan taabto waxa weeyaan internetkaaga speedkiisa ayay ku xidhan tahay. aad iyo aad inuu u raaga laga yaabaa bartan marka uu soo dejinayo. waad iska sugaysaa waxaad sameynaysaa dhammaan packageska GUI-ga ayaa soo kacaya ayuu download garanayaa. deetana intaa iska sugaysaa marka uu dhamaystirmo waxaad qoraysaa si aad usoo kiciso desktopka cax space minus win ayaad qoraysaa si aad usoo kiciso desktopka Kali Linux ama GUI-ga Kali Linux. marka password baa halka gelinaya. wuxuu yidhi password must be 6 characters. waxa weeyaan 6 character waa inuu ahaado. marka waxaan sameynaya waan gelinaya deetana verification ayaan sameynaya. marka halkan saaxiibayaal waxa soo kacaya GUI-ga ama graphical user interface-ka Kali Linux oo si fiican u wada garanaysaan. marka halkan saaxiibayaal waa kaas Kali Linux hadda way noogu install garaysan tahay computerkeena up and running weeyaan way ku jirtaa. waa kaas qaabka maaragtay desktopka Windowska oo kale ayaad kolba meel haddaad doonto fallaadha ku tegi kartaa adoon isticmaalin terminalka ama daaqada madow ee commandiga lagu qoro. marka halkan meesha doonta tegi kartaa inaha doontaad ka isticmaali waxaa doontaa tegi terminalkuna wuu inoo minimize garaysan yahay oo wuxuu xagga hoose inoogu jiraa haddaan daaqadan iska xidhno. tusaale ahaan terminalku maadaama hoosta ka waxaysan yahay ma soo kacayo hadda. waxa weeyaan qaabkaas weeyaan qaabka loo sameeyo Kali Linux loogu install gareeyo Windowska. saaxiibayaal aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waxaa la wixii su-aalana waad iga soo weydiin kartaan barta TikTok-ga. assalaamu calaykum.